la dilay mar uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul bishii la soo dhaafay sida uu sheegay dacwad oogaha Turkiga. Maydkiisa lama helin inkastoo booliska Turkigu ay bishii la soo dhaafay ka baadi dooneen kaymo ku yaala duleedka Istanbul iyo meel u dhow magaalada Yalova ee u dhow biyaha badda Marmara. Qoyska iyo saaxiibadii Khashoggi waxa ay dalbanayaan in xitaa ay helaan cad ka mid ah maydkiisa si ay u fuliyaan dardaaran uu sameeyay intii uu noolaa oo ahaa in haddii uu dhinto lagu aaso magaalada Madiina. Magaalada Madiina ayaa ah magaalada labaad ee dhulka Islaamka ugu barakaysan waana magaalada uu ku dhashay. Saraakiisha Turkiga ayaa iyagu sheegay in dacwad oogahooda Irfan Fidan uu ku guuldareystay in uu jawaabo u helo halka uu ku dambeeyay maydka Khashoggi iyo inuu helo cidda bixisay amarka lagu dilay muddo 3 maalmood ah oo baaris wadajir ah ay sameeyeen Turkiga iyo Sacuudiga. Sidii markii ugu horeysay uu uga jawaabay Sacuudiga dilka Khashoggi ee 2 Oktoobar ayaa jahawareer keentay. Sacuudigu markii ugu horeysay waxa uu beeniyay dilka wariyaha waxa ku xigtay in uu sheegay in wariyuhu uu ku dhintay howlgal aanan horey loo sii qorshayn oo su'aalo lagu weydiinayay. Dacwad oogaha boqortooyada Sacuudiga Sacuud al-Mucjib ayaa isagu toddobaadkii la soo dhaafay bixiyay sharaxaad kuwa ka duwan isaga oo sheegay in dilka wariyaha uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyay. kadib markii uu wada hadal la yeeshay toddobaadkii la soo dhaafay Mucjib dacwad oogaha Sacuudiga ayuu kan Turkiga Fidan waxa uu isna sheegay in dilku uu ahaa mid horey looga sii baaraan degay waxaana uu sheegay in wariyaha neefta lagu celiyay durbaba markii uu galay qunsuliyadda. Turkiga ayaa isku dayaya in loo soo gacan geliyo 18 qof oo dilka wariyaha ugu xiran Sacuudiga si dacwadahooda loogu qaado gudaha Turkiga. kuwa la tuhunsan yahay waxaa ka mid ah 15 ka mid ah kooxaha gaadmada wax ku dila ee ay leedahay boqortooyada Sacuudiga oo uu Turkigu ku doodayo in loo soo diray Istanbul si ay u khaarijiyaan wariyaha. qaar ka mid ah dadka looga shakisan yahay in ay dilka ka dambeeyeen ayaa xiriir dawlo leh Mohammed bin Salman oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga oo dalacayn uu falkan u jeediyay aysan waxba ka tirin shakiga laga qabo in uu ku lug lahaa arintani. dhanka kale xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in wali ay toddobaadyo naga xigaan ka hor inta Mareykanka uusan helin cadeymo ku filan si uu cunaqabatayn u saaro dadka ka dambeeyay dilka Jamal Khashoggi. xogaya Pompeo ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu wacd ku maray in uu la xisaabtami doono dadka ku lugta leh dambigan aadka u xun. si kastaba ha ahaatee bil ayay ku buuxsantay dilkii wariye Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul 2 bishii aanu ka soo gudubnay ee Oktoobar.